بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن شاء الله تعالى waxaan tilmaami doonaa alhuda habal waxay u diyaarisay meeshan aan taagannahay waa runtii buur aad u dheer dusheeda oo aad dareemaysaan daruurihii xitaa inaan dhex galay buurtu daruurahay ku dhex jirtaa. waxaan meesha u gelaynana waxay tahay insha allahu tacaala inaan isku dayno in aan u helo dadka dawooyin freesha oo qofka bini'aadanka jirkiisa wax u taraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfaco. waxa buuraha seefin loogu samaynayo ee loo gelayaa waxay tahay in laga haqabtiro dadka bini'aadanka sidii looga ilaalin lahaa wax jirkooda dhibaya oo loo gelin lahaa wax jirkooda aan waxba u dhimayn mufiid badanna u leh seliska qofka bini'aadanka dhisaya ilaahayna uu ku anfacayo subxaanahu wa tacaala. waxaan soo aragnay sonkortii oo dhammaatay, waxaan soo aragnay dhiigkarkii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bil gudaheed qofkii kaga ba'ayo, waxaan soo aragnay kansarkii oo dad ka hadlaya ilaahay uu ka baabiiyey, waxaan soo aragnay yani maaragtay cudurrada waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadii uu ka baabiiyey sida jooniska. marka waa in loo raadiyaa dadka dhir freesha oo runtii dhulka ay ka baxday hawo fiican uu leeyahay sun aan lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaalana laga yaabo qofka bini'aadanka naftiisa inuu ku badbaadiyo. kilibkan marka waxaan ugu diyaarinay in ay dadku ogaadaan meelaha wax looga diyaarinaya inay tahay meel aad u sarraysa oo aan qashin lahayn oo aan hawo xun lahayn, bal ay tahay daruuraha dushoodii dhirtii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku israaqay ee ka baxday ee daruurihii ay dul joogaan ee qabow ku jirta nadiif ah cid martay ayna jirin in wax looga raadiyo. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.